الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. cashirkii 11 kamida cashiradii inoo soconayay ku saabsanaa xadiidka ku yaala lil-40 fi l-40 lilimaam الnawawiy raximahu llah. xadiidka cashirka u horeeya 36 raawigiisa waa nin can Abu Hurayra radia allahu tacaala canhu. xadiidkuna umuuro aada u tiro badan buu ka hadlay. waxaad ka dhalaminaysaa xadiidkan sida xadiistii horeba
maxaasinu lislaam, islaamka wanaagiisa iyo fiicnaantiisa ayaad xadiidkaa markaad dhegaysata dhadhaminaysa. umuuraha uu ka hadlay iyo sida ay muslimiinta isugu baahan yihiin ama inay isugu gargaaraan ay xaq u tahay, iyo waxa gargaar iyo samafal ay muslimiintu isu galaan, abaalgudka aan tirada lahayn ee allaha dhow ugu talagalay addoommada siinayo. wa tacaawun cala albiri wataqwa baa rabbi addoommadii ku dhiirinaya. kolkaasa abaalgud weyn oo intay galeen ka badan addoommadii loo diyaariyey loo darbay. aada waxaa axaadiista aad ugu arki doontaan xagga astulidda, aada u xilqarisid wixii ceebeed ogaatid ee qof muslima aad ka ogaatid, iyadoo aynu taaban doono shuruuda iyada nafteeda leedahay, waxa la qarinayo waxaan la qarini. waxaa xadiidka aad ka arki doontaan inta adiga aada qof muslima ee mu'min ee walaalka ah hawshiisa mashguul ku tahay, adigana hawshaadii alla hagaajinayo. idan saad alla wax u qabta ma wax u qaban kartid adiga? uma qaban kartid waxba. kolka intaad mashguulka ku tahay qof muslima hawlihii kaa khasaare inaadan ku qabin ee adigana hawlahaagii alla gudayo hagaajinayo ayaad xadiidka ku arki doontaa. waxaad arki doontaa hawsha aynu ku jirno taabanaya caawa xadiidka dalabulcilmiga, in cilmiga sharciga ah, cilmiga loo baahan yahay sharciga ah, midka xalaasha iyo xaaraamta ku kala baraya, xiriirka adiga iyo allihii ku abuurtay ka dhexeeya ku hagaajinaya, adiga iyo addoomaha xiriirka ka dhexeeyana hagaajinaya. cilmiga runtaa cilmiga raadinta cilmigaa la raadiyo ama barashadiisa la isugu yimaado qiimiga ileeda marki doontaa. gaar ahaan meesha lagu kulmay kolkay meeshaan oo kale noqoto oo masjid masaajida eeba kamida, waxa lagu akrinayaana wixii rasuulku akrin jiray alkitaabu wasunna, qur-aanka iyo xadiidka labadan ayaa rasuulka ummadda baray oo uu akrin jiray. labadii markii la isbarayo waxaad arki doontaan qiimiga ay leedahay. xadiidka horaad ka arki doontaan. ugu dambeystii waxaad arki doontaan camalkaaga hadduu dib kuu dhigo oo hada imaanu saxiixu walcamalu saalix labadaa lagaa waayo, waxa hore kuu marin karaa inuusan jirin oo nasab iyo qabiil iyo hawlo kale ku dhaqaajin maayaan. camalkaaga hadduu dib kuu dhigo, ilaa waxaa miisaanka inagu aynu saara dadka oon ku kala fadilo qofkaan iyo qofkaana fiican markaan inaga leenahay. miisaanka aan saarayna waxaa laga yaabaa dhaqaale inuu yahay kii xoolo badan inaan dhahna kanaa fiican, kii caqli badan inaan dhahna kanaa fiican, kii markaas ijtimaaca meel weyn fadhiya oo xukmaya inaan dhahna kanaa fiican, kii qurxan, kii caafimaad badan, inaan miisaano aan qiimi lahayn wax saarno oon wax ku kala fadilo. haddaan inaga dadka loolan u samayniyo tartan say u kula qiimo badan yihiin tilmaano, laakiin waxaasoo dhan ba alla agtiima yaala. in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yandur ilaa quluubikum. kolkaa qur-aanka wuxuu ku dhawaaqay ina akramakum cinda allahi atqaakum. waakaa miisaanka eebe waa qalbiga iyo taqwada. kolkaa qofka intaa meesha ku nool ugu alla cabsi badan baa inta meesha ku nool say u dhan yihiin ugu fiicnaan badan. arrimahaas xadiidka ugu dambaysa qaala imaamu nawawiy raximahullah. imaamu nawawi alxadiidu saadisu wa halaathuun, xadiidkii 66 can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhr xaggi ayaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo canhu, abu hurayra xaggii ala raalli ha ka noqde, can inabiyi nabiga xaggii ayuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa iyo wa aalihi intii nabiga su rumaysay raacday. maqaamu duca markii la joogo ahlunabiyi kullu man aamana bihi, intii rumaysa oo dhan ayaa ducada la gelaysa. wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo intii suubanaha rumaysay raacday mina saxaabata laga bilaabo ilaa yawmi alqiyaama laga gaaro. qaal nabiga wuxuu yihi man nafasa qofka fayda can mu'minin mid alla rumeeyey xaggii kurbatan dhibaato haysataa ka fayda. dhibaatada nooceeda waa maxay? min kurabi dunya, adduunyada dhibaatada waa baahan yahay, waa xanuunsan yahay, waa aradan yahay, waa shaqala yahay, waa xiran yahay, waa naag la-yahay, waa baabuur fuul la-yahay. wax yarba dhibaatada adduunka ku haysata kamida mid ahaan ayaa qof mu'min haysata. qofbaa dhibaatadii ka fayda, dantii ku taagnayd u guday. maxaa ilaah ugu abaalgudayaa? nafasa allahu ilaah wuxuu faydaa canhu midkaan mu'minka kurbada ka fayday
ilaah wuxuu ka faydaa kurbatan dhibaato min kurabi yawmi alqiyaama. marka isma gudaan tan adiga lagaa faydiya taad ka fayday wax isgudaa maaha. laba masale midna iskuma gudaan. midaan mufraday ahay oo man nafasa can mu'minin kurbatan waa mid keliya isaga oo maad galaasbiyaasisa. laakin tan lagaa fayday min kurabi yawmi alqiyaama kolka ma isgudi karaan shidooyinka qiyaamada iyo kuwaan adduunka maya. shidadaan adduunka jirtaa wax iska caadi awey oo haddaad adiga waraabininba kaas kalaa waraabina, haddaadan cunto siininba kaasaa cunto siina, haddaadan rusbax siininba kaasaa siina. laakiin adduunye aakhiraya wax ku siina. idan meeshaas aakhiraha markii la dago mar laga liitaa male, mar laga minjamiiqo yahay male. kolka maalin ad adiga liidato waxaan allahayna wax ku tarayaana uusan jirin. walaa taziru waasiratun wisra ukra wain tadcuu musqalatun ilaa ximlihaa laa yuxmal minhu shay-un walaw kaana daa qurba. adoog iyo habartiiyo ilmaha kugu soo leexanaynin bilcad. limaada? laba masalay kugu soo leexanaynin. awalan dhibaato ku filan haysato qoorta loogu jiraa. taaniyan bakdin kalaaba ku jirta. waxay leeyihiin qofkaan qaraabaan lahaa xaq baa idinka dhaceeyey hadduu wax kugu soo dallacana os dhab ku yidhaahan kolka qaraabada waa kala cararaysa. wasadaqa allahu in yaquul yawma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi naagti wa baniihi ilmihiisii ilmi hebel lahay oo magacooda kawaa ku labo adaa lagugu abtirinayay. limaada? likulli imri'in minhum yawmaidin shaanu yugnihi. kolka maalinkay dhibaatadaas jirto oo la yaaban yahay oo meel lagu gabado lahayn kurbooyinka kugu haysta yuu ilaah kaa faydaya. kolka aada qof mu'mina oo adduunka joogo dhibaataysan aada dhibaatadii ka qaadid. dayn haddaad kulahayd oo cafidid dhibaataad ka fayd. sidaas daraaddeed salafu saalixa lagu aragti maahan tarbiya islaamiya qabeen. ninkaani cabeenay ka dhargeen muxtaaj markay arkaan baahan albaabku issoo taago annaga waa ka nahay albaabkaan xirana alaabtana waa ku urursanaa. iyaga waa ku farxi jireen. marxaban yaa raaxilati wuxuu u xisaabnaan jiray tagsi albaabkaaga yimid oo kule soo ful meesha hartaan ku geeyi waa ka fiican yahay. maxaa jira wixii aada la lacda markaad riyaal siisid oo riyaalkiiba 10 riyaala ama 70 riyaala ama 700 riyaala ama wallahu yudaacifu liman yashaa. labadiina manil mustafiid ma adigaa faa'iidaysay mase asagaa faa'iidaysay? khiyaara siisay 700 riyaal uu ku noqday ama ka badan uu ku noqday. maxaad fari lahayd adigoo deeqdiyo wixii la bixin lahaana haysa waxaad wax siisana waayey? waana imaan doonta. waxaa iman doonta ninka intuu sakadiisii la wareegaysto inuu qof ka guddoomo waayo. markuu adiga aada doonan lahayd yaa miskiin oo muxtaajan waxsaad raadin lahayd albaabkuu ku yimid marxaban yaa raaxilati. kan wuxuu rabaa wax korkiisa wax saartuu rabaa. qaala rasuulka wuxuu yihi man nafasa qofka fayda can mu'min inaan qabiil iyo qows iyo degmo midna lagu qaydin iyo midab arag iimaan baa lagu qayday. ilaah inuu fududeeyaa la rabaa. ka gada intaasaa kugu filan barka araya wixii kala yeelkiisa. can mu'minin qof ilaah rumeeyo qofkii dhibaato ka fayda kurbatan hashoo keliya ka fayda kana mida min kurabi dunya adduunyada dhibaatooyinkeeda kamida nafasa allahu ilaah wuxuu ka fayda anu xaggiisa kurbatan dhibaato kana mida min kurabi yawmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda shidooyinkeeda. faqrada labaad waa ka daran tahay ti waman yasara qofka fudaydiya calaa mucsirin qof wax walba ay ku culus yihiin oo waxba usaainen korkiisa u fudaydiya yasara allahu isna ilaah baa u fudaydiya caleyhi korkiisa danihiisa fi dunya adduunyadii walaakhirati labada. taysiirkan waxa wey faqiir haddayn ku yeelatay waktigii la ballamayna waa la gaaray inuu dayntii ku gudo waa u fudaadan wey. dayntii inuu ku gudo waa u fududaan weyday. adigii baa taysiir sameeyey labaad mid yeeshay labama ama waxaad yeeshay muddadii baad u dheeraysa waxaad tiri sanadaan kuugu daray muddadii hore kaa soo rafo waa nooc mina taysiir kamida. ama waxaad tiri war bal wixii aan kugu lahaa nisaan ka cafiya niskii kale keen waa nooc mina taysiir kamida. kulligiisba haddaad xunaysana waa ka fiicanta. wasadaqa allahu id yaquul wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin wa an tasadaquu khayru lakum.
faqiir ba hadduu yahay maasnaad ku yeelatay laguna xiri maha laguna gadi maha jirkiisa la goyn maha inaad sugtaa waajib bay kugu tahay laakiin waxaad ilahay inaad ku wareegsato aada cafidaa kasii khayr badan kana waa waajib waxay fuqahadu yidhaahdaan marar baa sunadu ka qiimi badan tahay waajibka ilaa 3 gooriyay ku sheegaan mar waa markaa faqiir baa dayn ku yeelatay daynkaagii baad ka weyday ilaa uu daynka gudi karo wax ka helo inaad sugtaa waa kugu waajib inaad cafisaana waa ku sunahaasaa ka qiimi badan ayadii baad cadaysayba wain kaana duu cusra qof faqiira hadduu noqdo ka daynka qaba fanadiratun baa waajiba sugid ilaa goormaa la sugaya ilaa maysara intuu ka hodmo qadarkii aad ku lahayd qof gudi kara uu ka noqdo yaad sugaysaa waa waajibtaas wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysataan oo cafisaana khayru lakum sugidii bay ka fiican kolkaa qur-aankii aada cadeeyay tan waa sunno tana waa waajib sunaha ka fiican waxaa taa lamida intaan salaada la aadaaminaan waktiga gelin haddaad sii waysa qaadatood waktiga u diyaar garoodo waa sunno in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin laakiin marka waktigii galad aadaankii maqashay inaad wayse qaadataa waa waajib waajibkaa waxaa ka qiimi badan sunnadan hore salaada marka aad ka baxdid arrinta saddexaad waxa wey salaamta la ishi salaamayo taxiya islaamiya inaad qofkaad la kulantay asalaamu calaykum tiraahdood bilowdid waa sunna calaykum asalaam dambase waa waajib koo qur-aanka midan amar buu ugu dhawaaqay wuxuu ilah yihi waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha kolkaa radigii baa waajiba bilaabidiina waa sunno radigaa ka fiican radigaana waajiba bilaabida hore sunnaha ka fiican idan midaan taysiirka qofkan wax loo sahlo qofkaasay wax u sahlanaan waaye in waxaas u sahlanaan waaye loo fudaydiyo fiicnaanteeda arag waman ruuxa yasara fudaydiya calaa mucsirin mid caliga korkiis ka fudaydiyo muddada u dheereeyo maasta ka rida cafiya yasara allahu ilaah baa u fudaydiya caleyhi korkiisa fi dunya adduunyada gudaheeda hawluhu leeyaha loo fudaydiya waalaakhirati aakhira loo fudaydiyaa qorayska aakhira jira iyo midka adduunka ee labadaba loo fudaydinayaa waman satara musliman qof muslima oo ilduufaad aragtay waxaa culamadu ku qaydeen midaan dawil hay-aad qof sharaf leh oo taqiya oo akhyaara oo waa gaflatu saalixiin intuu ilduufay waxun samaynayaad aragtay waa la asturaa kaasoo kale lama sheega limaada maxaan u kala qaadaynaa hadduu qofka ardaal yahay waa la sheega haddii akhyaar yahay lama sheegayo waxaan u yeelaynaa midkaan akhyaarta waa ildufayn mid waxaan caadaystay oo lafihiisa uga raalli ah oo waxa inuu sameeyo ogolmeen nafiya shaydaan baa qasbahoodu tuuliyey ama midkaan ardaalka isagiibaa babaahinaya banaankan la taagan kuna faanaya marka midkaan ummaddaa laga qabanayo kanse hadduu maanta ku badbaado isagaan weligiisba u noqonay waa la qariyaa kan aqiilu dawil hayati casaraatihim qawlkii rasuulka dadka sarafta le gafafkay galaan ee marya laba ka dhaca asura laakin xadiidka musliman buu yidhi haddaad ogaato qof muslim xumayn uu sameeyey adiga u naseexeeya waaniyo caqli wax uu sheeg laakin dirba inaad bileshka la tiigsato sharbadu geysa hayeeli haye horta waani hadduu mutamarid noqdo ama mutajaahil bilfiski nin cadaysa banaanka dhiganayo ama mutafaakir nin ku faanayo hadduu noqdo dhibkiisa uu sii badan yahay ka qabo muslimka haddii kale waaniyo u naseexeeya asto rasuulka wuxuu yihi man satara qof ka qariya musliman qof muslima ilduufay ceebuu koo yahay ku qariya satarakullah isna ilaah baa ceebihiisa qariya fi dunya adduunyada gudaheeda iyo walaakhira aakhira labadaba allah ceebtiisa qarinaya hadduu isagana ceebaha muslimiinta qariyo oo qofka inuu wuxuu sameeyey lagu abaalmariyo waa sheegay qur-aanka kariimka fi suurati alancaam sayajziihim wasfahum inahu xakiimun caliim kamaa tadiinu tudaan saad adiga u dhaqantaa lagula dhaqmaya dadka haddaad u dhaafiyaa subaanta ana waa lagu dhaafaya waliyasfaxuu walyakfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum hadday adiga adoomada dhaafto u dulqaad bayan tahay adiga allah ku dhaafayo waman satara qofka qariya musliman qof muslimoo ceeb ka ogaaday qofka ceebtiisii qariya satarahullah ilaah isna ceebtiisa qariya fi dunya adduunyada ceebihiisa ilaah u qarinaya walaakhira aakhira gudaheed baa alla u qarinaya jumlada saddexaad waa tana min baabi tacaawun cala albiri wataqwa
waxaasama falaga cayn laisku siiyo la isgargaaro taasay diintuna fartay abaalgudkii lagu helaayeyna xadiidkaana noo sheegay qur-aanku waana faray tacaawanuu cala albiri wataqwa samafalka iyo alla kacabsiga gacan isku siiyo markaasaa rasuulka abaalgudkii sheegoo yihi wallahu macbuudka xaqa fii cawni alcabdi addoonka gargaarkiisuu alle ku sugan yahay maa kaana alcabdu inta addoonka uu ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa muslimka gargaarkiisa intaad ninkaan wax la riixayso eed hawlihiisa mashquul ku tahay hawlahaagii allah kuugu jira kolkaa allah kaa xoog badan oo kala aqoon badan oo dantiiyo maslaxada kaa yaqaan kolka si aad gargaarka eeba u heshid adigana xaajaadka muslimiinta gud xadiid kaloo yaab leh oo macnahan tilmaamayo yaa wuxuu leeyahay ilaah wuxuu leeyahay addoomo ina lilahi cibaadan ilaah addoomuu leeyahay ikhtasahum ullahu biqadaa'i xawaaiji ilcibaad wuxuu ilaah hawshoodiiya ka dhigay dadaalkoodii inay danaha muslimiinta gudaan baaba rabbi ku hanuuniyey hawlahoodii ka dhigay awiya maalin bay urdayaan maxtaaj bay gacanta hayaan muslim bay u gargaarayaan kii ay caafimaad la raadinayaan iyo kay cunto la raadinayaan iyo kay baabuur saarayaan ilaah baa hawshaa u xil saaray oo ku hanuuniyey fahum laaminuuna yawma alqiyaama walaa yafsacuuna yawma yafzacu nnaas maalinta qiyaame la yaaban yahe la argagaxayo iyagu inta argagaxaysaa kuma jiraan dhibaatada jirta qiyaamana kuwa ka nabadgelaya waa kuwa hawshoodu tahay danaha muslimiinta gudideeda wallahu ilah fii cawni alcabdi addoonka gargaarkiisa gudihiisuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu intuu kan addoonkaa ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa muslimka gargaarkiisa xirnimadii waatana waman ruuxa salaka qaado dariiqan wado yaltamisu uu ku raadina fiihi dariiquu qaaday cilman cilmi xaqa sahala allahu ilaaha u fudaydiya lahu isaga bihi bisababihi wadada uu qaaday cilmiga dariiqan wada ila aljanati oo dariiqa aluu sahlaa kolkaa dariiqan la qaaday cilmiga loo qaaday kanugaama waaqica oo cashirka aynu kusoo doonanay oo qof la arkaaba markuu aadaanka iyo maqlay ama masaajid kaleba kusoo tukaday tilaabaha uu soo qaaday isdarsigan ugu yimid waa salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilmu intaas markuu kasii weyn yahay oo intaad soomaali kasoo xareysaytay jaamacaadka muslimka wax ka barata adooneysana oo kasii weynta kolkaa wadadii xarnimada laga tegi jiray markii kitaab lagu maqla meel hebel kitaab lagu akriya ama sheekh dadka waxbaraa meeshaas jooga raadintii la raadin jiray asbaabta iyo wadadaas la qaadayo haddaba wadadaas la qaaday loona qaaday si cilmi loo barto daraaddeed cilmigaana uu yahay cilmu shariica inaad makaaniga noqotood biraha barato maxmuma laakiin markaad cilmiga daaqa iyo xayawaanaadka iyo daqsiga iyo duwaaga iyo dameeraha cilmigooda barati asaadan aqoonin adiga korkaaga wixii waajib kugu aadan ogeyn waxa kaa xaaraam ana ogeyn ilaahay ku abuurtay wuxuu ku abuurtayna aadan ogeyn xiriirka adiga iyo bilcaantaada ka dhexeeya aadan aqoonin adiga ilmahaaga xaqaad isku leedihiin muslimiinta xaq ay kugu leedahay waajibkii cayniga ah ee lafahaaga laga rabay awiya maalinku kor fuulay tanaad uga baxda laakin muhiimsidaata sida guryaha loo dhisaa taqaani intaasaa shamaysa gasha intaasaa bir gasha alwaax intaasaa gasha maxuma laakin waa xaaja sanawiya awal wa qabla kuli shay ilaahay ku abuurtay baro nabiga lagu soo diray baro kitaabkan lagu soo dejiyey baro axkaamu lkhamsa maa yajibu wamaa yaxrumu wamaa yundabu wamaa yukrahu wamaa yajuuzu kala baro waxba muftiha noqoni kutubna dad ha u akriyin balse waxa kugu hagaagaan arkaanta islaamka shahaadada bariyo tawxiidka xaqullahi salaada baro sida loo tukado maxaa buriya zakada baro soomka bara xajka baro bal arkaanta islaamka ee samaynayso ee islaamka kusoo gashay ha noqoto mid cilmi ku dhisan in hidiya dhaqan noqon dadkaba waa tukadaa iska tuko waa la xajiyaa iska xajiya adigana makiya madiina soo arag waa la soomaayo soom yay noqonin ha noqoto cibaado rukni min arkaan alislaam waxa inaad taqaanin hawlihiisa ha noqoto kolka cilmiga la sheegaa cilmigaas qiimiga badan waman salaka qofka qaada dariiqan wado yaltamisu uu ku dalbaayo fiihi dariiqa cilman aqoon sahala allahu ilaah waa u fudaydiyey lahu isaga bihi dariiqaa sababtiisa dariiqan wado ila aljanna oo hadhow xagga loo sahlaa wadadii jannada miya mas haddaaba loo sahlay maxaa yeelay meeshaan u tegay cilmigii kasoo bartay cilmigiina cilmu shareecuu noqday isna waa ku camal falay janna ma ku dhacayo
kolka jidkaan aad cilmiga uqaaday naftaaba jidkii jannada loo qaadaayo. maxaa jira xagga meesha la tagoo la dhinto wixii ka dambeeya waa janno tegida, xaggaa shaqo ma laha. kolkaa jidkii lagu janno tegaayo kee waayo? waa midkaan naftiisa. kolka cilmigaan aad doonatay naftiisaaba jannadii, naftiisaa lagu tagaaya. idaa ra'aytum khiyaada aljannati fartacuuha, gurta markii la weydiiyeyna xilaqu dikri aw xilaqu lcilmi, meesha wax lagu baranaayo ayaaba beertii jannada la cunaya. waana dhaxalkii nabiyaasha laga dhaxlay. cilmigaan xataa ay sheegayno waa kii nabiyaasha laga dhaxlay. Abu Hurayra suuqa ku faaday Madiina almunawara bacda wafaati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. markii rasuulku geeriyooday ka gadaal ayuu suuqa Madiina faal ku tagay. wuxuu arkay dadkii oo saan isu korfuuloo buuqaayo, naga gada iyo waa kaa gada iyo gembi iyo ku dar iyo ka dhac. wuu yaabay sidii wax majaaniino. kolkaasuu yii wax yaraan idiin sheega, kol idii soo jeestay. waa loo soo jeestay. wuxuu yihi waa ninka meeshaan ku hardamaya dhaxalkii nabiga maka maarkin kama maarano. waa la qaybsanaya orda masaajidka taga dhaxalkii nabiga la qaybsana. meeshaan la mooday waa lasoo kala hor. meeshii hadduu yimid waxaa loo yimid sideenaan oo kale dad un meelo fadhiyo qur-aan iyo xadiis baranayaa loo yimid. inta haddii loo ordo la derderay, kuwaa la derderay, kuwaa la derderay. meeshii baasiye adduun iyo mood iyo magac ma yaalin. Abu Hurayra waa loo xanaaqay, waa lagu sorday. maxaa noo lugoysay nin weyne sheekhaad bataay? maxaa noo tiri dhaxalkii nabiga la qaybsanaa ka gaara? ma tagteen masaajidkii waa tagnay. maxaad aragteen? dad fafadhiyaan oran oo qur-aan iyo xadiis barna, wax kale maan arkin. dabaal aatihi inuu yihi wax kale muu ka dhintay? maba la socotiin miya? maasuuba qabaybe isagoo cabuurkiisii nin yahuudi haysto xoogaa uu uga qaaday masagaa ilmaha oo dayn qabuuba dhintay. dayntii uga kala bixiyey farasuu ku jihaadi jiray iyo hal seefa oo labadiiba cali qaaday iyo beer uu yahuud markii la jabiyey ka helay. intaanaa jirta beertiina wuu waqfay. wuxuu yihi wax la dhaxlaa ma jira, nabiga lama dhaxlo. kolkaa wax kale muu ka tegay waayo. maxaa meesha waa kaas dhaxalkii nabiga. ama doonto ama hadaad kasteedi kale. kolkaa jidka cilmiga iyo barashada loo qaadaa naftiisa oy niyada saalixata inaad ilaa cilmigan ku caabudo, taas nafteeda ayaaba ariiq min ariiqi ljannati ah. waxaana lagu soo dhawaaday kolka wama ijtamaca qawmun dad ma kulmaan fii baytin aqal gudihii min buyuutillahi masaajidow. kole dad buyuutullahi maqasha aqalada ilaah loo aaneeyo aa masaajida. aqalada kamida dadkuma kulmaan. markay kulmaana maxay qabtaan? yatluuna ay akriyaano kitaab allah, ilaah kitaabkiisay akriyaano. minaaka jaamac intuu qaato yuujuz yasua wuxuu ka gaaro inta la sugaa salaada si akrina oo tilaawada yatluuna kitaab allah lafdigii wa fii macnihii waatan wayatadaarasuunahu ay kala akrisanayiin macnihii qur-aanka baynahum dhexdooda. taas ma dhacdo. hadday dhacdo yaa rabbanaa maxaad ku tala gashay? ilaa hadday taasi dhacdo oo intay masaajid isugu yimaadaan ay kitaabka ilaahay lafdan wa macnan akrinayaan, nazalad waxaa degta calayhim korkooda asakiinatu deganaan, xasal iyo tuma'niiniya, raxmad iyo gabow iyo macaan ayaa ku degaya. wahashiyadhum waxaa daboosa alraxmatu, naxariis eebaa gab isku siisa. waxafadhum waxaa intay maxabada ka badata isku wareejisa almalaaika, malaaigtii isku wareejinaysa. ilan malaaigta waxay raadinaysay oo hawsha loo soo direehay inay helaan ummad mu'miniina oo ilaahay kitaabkiisii lafdan oo macnan baranaysa. kolka dantoodii adigoo baadi intay kaa maqnayd wareejinayo baadidii helay saad u farxda u aragtay ood baadi agteeda isu taagto, iyagana way sagtaagayaan. weliba waxalay kuwa kusoo horeeya goobta yaa kuwii kale u yeeraya halumuu ilaa muraadikum ay leeyihin. waxaad raadinayseen waa kana kaalaya. dad muslimiin oo ilaah kitaabkiisii lafda oo macnan baranaya aan idin hayna. sidaas markay malaa'igtii tahay, ilaah wuxuu yihi subxaanah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wadakarahum ullahu, allah sheegoo faaliya. wuxuu ku sheegaa qoladii kitaabka alla baranaysay fii man dad dhexdood cindahu agtiisa malaa'igtii. malaa'igta oo iyada taaca loo abuuray on gaf lahayn, dhibaato kalena lahayn, oo malaa'igtii cindallahi ay joogto yuu ilaahay leeyahay malaa'ikatii haddaad moodeen inaad keligiin fiican tihiin ood icaabudiin arka addoomahaygii bani aadamka basharka soo kuwaas masaajidkaygii isugu yimid aniga kitaabkaygii akrina ee isu akrinaa soo maaha. kolka iyagiina waa la tashjiiciyey, malaa'igtiina xoogaa waa la burus celiyey. kolka in ay dhulka joogaan addoomo baariyaala oo rabbigood rumeeyo raacay, rabbi meeshaasuu ku faalinaya. kolka adiga sheegsheegmadii ilaah sheegsheegaysay iyo sheegsheegmadu adiga alle ku sheegay laba isguda ma yihiin maya.
kadalika adiga meeshaad alle ku sheegaysay dhulkaad joogtay adooma saalixiina dhex joogtay laakiin ilaa meeshuu ku sheegaya waa maxay fawqa alcarshi buu ku sheegayaa wa bayna malaa'ikatii buu ku sheegaya man dakaranii fii nafsihi qofka hoos naftiisa igu xusa dakartuhu fii nafsi anigana hoos baan uxusaa waman dakaranii fii malaa-in qofka koox dhexdeed igu xusa oo aniga kitaabkii ala lafdan wamacnan la baranayay wama ijtamaca qawmun dad ma kulmaan fii beytin aqal gudihi min buyuutillah ilaa aqaladii kamida yatluuna ay akrinayaan kitaab allah ilaa kitaabkii bay akrinayaan lafdigii weeyaan tilaawada wayatadaarasuunahu fasirka iyo macnihi yatadaarasuunahu waa kala akrisanayaan macnihii baynahum dhexdooda ama lafdigii qur-aanka ay isu sheegayaan nin baa muqri ah oo qur-aanka aada u yaqaan sida imaamka naga oo kale sheekh maxamed kolka kii baa laga baranaya waa tadaarus tajwiidkii axkaamtii baa la baranaya lafdigii baa la baranaya macnihii baa la baranaya ila taasi hadday dhacdo dadkaasi kulmaan nazalad waxaa ku degta caleyhim korkooda asakiinatu xasil iyo deganaan wakashiyadum waxaa daboosha alraxmatu naxariis eebe waxafadum waxaa koobta almalaaikatu malaaig wadakarahum ullahu rabbi wuxuu ku dhex faalfaaliyaa fii man malaaig gudaheed cindahu agtiisa joogtay cinda allahi malaaig baa joogtay waman bataa qofku dib u dhiga bihi isaga camaluhu camalkiisii baa dib u dhigay oo camal fiican buu la iman waayey lam yusric ma dedejiyo bihi isaga nasabuhu abtirkiisa abtir meeluu ku geyna mala abtir meeluu ku geyna mala ibnu wardi wuxuu raximahullah laa taqul aslii wafaslii abadan inamaa asulfata ma qad xasan haddaad tidhahda qowsaan kasoo jeeday cid fiican shahadoogay sheekh waay waxaas haddaad tidhaahi waxaas meel iska dhig laa taqul aslii wafasli ama ilmo fiifiican oo awliye aan dhalay waxaa dhashay wixii ku dhalay dan uga bax laa taqul aslii wafasli abadan weligaa ha dhihin inamaa aslulfata wiil waxaa wasala wixii isagu sameeyey ma qad xasan isaga wuxuu xasiliye isbartay waa sharaf kuwa kolkaas waman badaa qofku dib u dhiga bihi isaga camaluhu camalkiisa lam yusric ma dedejiya bihi isaga nasabuhu abtirkiisa rawaahu muslimun imaamu muslim baa xadiidka wariyay bihada lafdi cibaarada aynu sheegnuu ku wariyey alxadiidu asaabicu wathalaathuun xadiidka 7 yaa buu leeyahay raawigiisu waa cabdullahi ibni cabaas xadiidku waa xadiidu lqudsi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruwaaduu ku jira isaga alla ka wariyey waa xadiid qudsi ah xadiidka yaa buu leeyahay shiika imaamu nawowi raximahullah ayaa sharxay sharxiisa kaafi ah wixii aynu ku sharxi lahay imaamu nawowi waaba qoray axaadiista hore aada ubuusan sharxi jirin laakiin kan wuu sharxay wuxuu la yaabay nicmada iyo barwaaqada xadiidka ku sugan markaasuu sharxay alxadiidu saabicu xadiidka 7 sodonaad can ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas xagii baa laga wariyey radia allahu rabbi raalli ha noqdo canhuma cabdullahi iyo cabaas ba raalli allaha ka noqday can rasuulillah alla rasuulkii xaggii buu ka wariyey sala allahu naxaris allaha badiya calayhi rasuulka dushiisiiya wa aalihi inta rumayseen raacday wasalama nabadgelya allaha ku badiya fiima xadiid gudihii uu yarwihi suubanuhuna wariyey can rabbihi rabbigiis xaggii uu ka wariyey tabaaraka rabbi kor ahaa rabbi tacaala rabbi tabaaraka ceeb lah oo nasahna watacaala kor ahaya qaala rabbi wuxuu yihi ama rasuulka wuxuu yihi in allaha eebe kataba wuxuu dhigay alxasanaati waxa wanaagee dadku samaynayo iyo wasayi-aati waa xunbuu labadaba qoray sidee u qoray waxa weeye mas'alatu lqadaa waalqadar qofkaan addoonkaa xun iyo san intuu adduunka ku nool yahay wuxuu galabsanaa waa la qoray waa qoray haddaynu xadiidkii kusoo marnay hore oo uu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam in allaha yajmac axadakum khalqahu fii badni umihi yuu ku kulmiyo 40 nudfatan wa 40 calaqatan wakada akhiiran kolkii nafta lagu afmaraqi waxaa la faraa bikatbi camalihi xun iyo sanba wuxuu samayna kolka sayi-aadkii waa qoran oo awalan waxay ku qoran yihiin addoonka wuxuu imaana waa xukuman yihiin oo waa qoran yihiin ka gadaal markuu la baashiro isla yimaadna waa qoran waa la qoray ha qoro ilaah uma markuu qoray ka gadaalu bayana eeba cadeeyey dalika sayi-aadkii xasanadii waa uu kala cadeeyey waataynu yidhi kalimatulxasana waa magac caama muxuuna wada keenayaa wax alla wixii rabbi raalli ka yaho dhan sayi-ana wixii rabbi usan raalli ka hayn o dhan kolka shar iyo khayr bay lamid yihiin ismi iyo macsiyay lamid yihiin kolka xasano
iyo khayr iyo biri way isku wada mid, ismi iyo macsiyo sayi-o sharna way isku mid la arkaaba magacanimayo. uma ka gadaal buu bayanaya bacdeeyey dalik xasanadii iyo sayi-adii waa uu caddeeyey sida ilaah u cadeeyaa. faman ruuxa hama damca bixasanatin bificli xasana wax wanaaga inuu sameeyo qofka niyada ka damca oo falam yacmalha aan samayn xasanadii duruuf iyo dan iyo halmaan waxbaa ka reebay isaguse waa uu damcay katabaha allahu xasanadii uu damceysan samayn ilaah wuxuu u dhiga cindahu alla agti xasanatan kaamilatan ma samayn oga waa niyad. limaada waxaa loo samaynaya waxa weeye qofkaan maadaama uu waxaan niyooday hamiga soo camalulqalbi maa naftiisa camal waayo niyadan markuu qalbiga ka gooyey markaas nafteedaba inuu sameeyo niyadii nafteeda ayaa camala qalbigaana sameeyey. rasuulka markuu niyada qiimigeeda nabarayeyna inama alacmaalu biniyaat buu yiri oo wixii niya la-aan la sameeyaaba qiimi male. idan niyadu wax sahlan ma. kolkaa markuu niyooday asuusan samaynin maxaa loo qoray xasana kaamila aan waxba ka maqnay buuxda. kolkaa xasana kaamila lagu yiri mudaacafadeedii waa siileeda ee wain hama haddii addoonkii uu damco biha xasanadii inuu sameeyo facamilahaa waanuu sameeyey intuu wayse qaatuu tuka i tiri haddana waa soo tukaday katabaha allahu ilaah wuxuu xasanadii u dhigaa cindahu eebaagtiisa xasanatan kaamilatan ma ah 10 xasanaat 10 ilaa 700 dicfin 700 oo goor alla laablaaba sii dhaafi ilaa adcaafin kafiira laablaabyo tiro badan wallahu yudaacifu liman yasha yaa loosii laablaabaya. markaas waa goorma waa markuu xasanadii damcay sameeyeyna sayi-adii weyma kolka. wain hama addoonka hadduu damo bisayi-atin bificli sayi-a xumaan inuu sameeyo asii falam yacmalha uusan camal falin katabaha allahu ilaah wuxuu dhiga cindahu agtiisa xasanatan kaamilatan. tan ma sugaysa inuu waxuu sameeyu damcay mana samayn xasana kaamila loo qoray. limaada waxa waaye awalna xasanadii koobaad maxaa loo qoray inuu damcay uusan samayna xasana loo qoray oo tanna kolka sayi-adii waa damcay masa samaynin ma sayi-a loo qoray. meeshaan isbedel weynaa ku jira. isbedelka ku jira waxa waaye xasanadii horees niyooday eesan samaynin niyadii samaynta uu niyooday weligiis waa qaba ma bedelmin. laakiin markuu sayi-adii inuu sameeyo damcay waa la qori lahaa muxuu ku badbaaday ka tegideedii maxay noqotay ka tegidda hawl labaad noqotay. niyadii hore waa isbedeshay haddayna isbedelin waa ku dhoobaysama gacmiya lagu hulagelina inay niyadii isbeshay daraaddeed ayuu inuu dhaafa niyooday niyadaas labaadaa tii hore duqaysay. idan ka tegiddan uu ka tegay iyo niyadii uu uga tegay labadan daraaddeed cinda allahi xasana kaamila loo dhig. wain hama hadduu addoonka damco biha sayi-a inuu sameeyo oo facamilahaa uu sameeyo katabaha allahu ilaah wuxuu u dhigayaa sayi-adii uu sameeyey sayi-atan waaxidatan midaan fadlullahi sooma ilaan kuwii hore 10 iyo laab mudaacafa laga dhigay tan ma la laablaabin tan waa fadlullahi yutiihi daaklahu inaan sayi-adii la laablaabin xasanadiina la laablaabo waa ilaah fadligiisa uu addoomihiisa ku galladaysayo. xadiis aad iyo aad u low waana xadiisulqudsi qaala nabiga wuxuu yihi in allaha ilah kataba wuxuu dhigay alxasanaati wanaagyaalka wasayi-aati xumaanyaalka waa uu qoray waana uu qadaray. uma ka gadaaluuse bayana alla cadeeyey daalika xasanadii iyo sayi-adii oo faman hama qofka damca bixasanatin wanaag inuu sameeyo oo falam yacmalha aan xasanadii samayn katabaha waxaa dhiga xasanadii allahu eebe cindahu agtiisa xasanatan wanaag kaamilatan dhamaystiran. wain hama addoonka hadduu damco bihaa xasanadii oo facamilaha uu sameeyo katabaha xasanadii la sameeyey waxaa dhiga allahu eebe cindahu agtiisa 10 xasanaatin wanaagyaal 7 ilaa 700 dicfin 700 oo laablaab ilaa adcaafin kasiira laablaabyo kasii badan. wain hama addoonka hadduu damco bisayi-atin bificli sayi-a xumaan inuu sameeyo oo falam yacmalha uusan samaynin katabaha sayi-adii laga tegay allahu eebaa dhiga cindahu agtiisa xasanatan ajri kaamilatan dhamaystiran. wain hama addoonka hadduu damco bihaa sayi-adii inuu sameeyo oo facamilaha
وكبة طلقصده كتبها الله إلى وادها سيئة لا سميي سيئة واحدة متكلية لرقاء لبما رواه حديثك وحوريه البخاري ومسلم في صحيحيهما لبدا جامع قدوه بكوريين بهذه الحروف سنة من قصة ورجي إمام النووي وحيري فانظر بالدور يا أخي ولالك مسلم كواو وفقنا الله أنك الله نقصيه إيا وإياك عديك أدنك ولالكنا إلى عظيم اللطف الله تعالى إلهي نحريستي سويه هذا بالفير وتأمل وحتنوحنا هذه الألفاظ عبارة إلهي وقال وقوله رب قول كيسا عنده رسولك أويري عند الله إشارة كلك عنده لا يري إلى الاعتناء إلا مدان سيال عنده مولته انت حسنة إذا لقرأ عنده ولا وإن هم بها فعملها سيادي كتبها الله سيده واحد عنده لمن كلك مركي حسنة عنده يا الله جرته تنم الله جرته كلك كلمة عنده للم إشارة في الماوي إلى الاعتناء أسدك يددالك إيد وبها بالحسنة وقصدي يا حسنة دينا عنده اللغو ضري سيادي عنده اللغو مضرين حدنا كلك كاملة سيئة كاملة لمدين سيئة واحدة ولا يريي حسنة دينا كاملة ولا بوحيي وقوله رسولك قولك سأو كاملة يرينا للتأكيد أتكين حسنة دي أدونك الله قرأي اللي أتكيي وشدة الاعتناء قصد الراشد بلا حسنة الله قصدي وقال وحو إلهي في سيئة التي هم بها أدونك أوضمعي ثم تركها وكتغينا كتبها إلى وأوليها الله عنده حسنة كاملة فأكدها إذا السيئة لدمع لك تغير أيضا بكاملة كواتكي وإن عملها أدونك هدو سيئة سميه كتبها الله سيئة واحدة كاملة لمدين سيئة ولا عنده لمدين فأكد إلى هو عتكي نبيك تقليلها يريد بواحدة ولم يأكدها بكاملة فلله التي يجيبها الحمد مهد والمنة قلت سبحانه إلى عرلان بدنا لا نحصيكم بمينه ثناء أمان عليه على الله إبوينك ورك الله أمانه وبالله إلى قبيدي يا توفيقه وافق إلى هاتيرون الله وافقه الله يقدر في ميكوهاته الحديث 38 حديث شدادي يا صدنات خاويك سوى أبو هريرة حديثنا هو قدسي وحذرك دوتان ذاتك إلى رمية راعي ربي كحيرا الله تقيم إليك لي كلك معاسي قبنا وقابا ما ربي يروا كدق الله معي معي تاي معاسيدا مذي واتن ومعادات أولياء إلا قف مؤمن وتقي وربي كحيرا حدادنا عدد أذيك اللعل ووذوه طلباتنا وخبض في سورة البقرة إنه قصوا مرني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله خبض عدد بنانك كمري وإيان دقال أيه قامين أيان ألي رسولك تلقى مركا عدد ألي رسولك كدعين كرتانا وإيانك حقيقا كدعين كريم خبض بنانك كمرا لا يد لنا أصحابته لا يد لنا تبر ما هاينو إلى حرب الله وحرب رسوله بنانك جيتك مرك طلباتنا واصل ما عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب وحديث غشية قولك يا بوي قف وليه قف اللعو اللوبة لقال بانكو قادا إياه كتبوا حتى بشو الضوحا لبش مذي وأولي نمذ وامح طلباتنا وحاوية علادا وخبي كدق الله ما يوانو أولا ولي واتقنا هرانا بقوزو شيء كداهي مينو وإذا أبا مركو أولياء شيء أرى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى الله شيء الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان والتقوى لبدنا ولاية الله إلى قفك أولوادي إلى أنه تولي اسمه مولي اسمع أنك ولي شيء وقفك إيمان صحيح يعمل صالح عليه ماذا كلك أنت ولاية دي سلام صحيح مقع ملايا مدن ملايا مايا الإيمان والتقوى لقربا أما ولاية سو انت إدنتها ألا يقع أنك منك نرى ديرين شقدنا لما لكن هذا نقف قارن إيمان صوبني عمل صالح إنه ولي الله هي بين اعتقادنا ودقاليننا ودورينا عبدي مينو الرئيسي عن دوسي سنعوني مينو
waxa weeye wax dhibaataana u yeelan mayno waxaan ku dhaqaalayn karnana waa ku dhaqaalaynayn mana aha kolkii la dhintoon baa kadib weli la noqdo inta la nool yahay weli lamaha maya alimaanu wataqwa taas waa wilaayadii ka labaad colaada laba nooc wey kan xadiidka aynu ka qaadanayna man caadaa lii waliyan kalimatu lii waxayna tusinaysaa colaadan eeba ka dagaalamaya inay tahay mid mu'minka lagula coloobay alla dartii taas waad garan karta maxay taab ka dhowrsanta oo ka duwan tahay oo hadday laba mu'min dagaalamaana oy dana kale ka dhexeeya waxa lagu dagaalamaya alla dartii ma beer bay ku dagaalamayaan xiidnimo ay ku dagaalamayaan shirkay ku dagaalamayaan wax ka dhexeeya ku dagaalamayaan cumar iyo abubakar baaba gurmoon laba weli oo ka weyn jirin ayaa murmay cali iyo cabaas baa murmay kolka haddii uu yahay colaada iyo dagaalka labada weli ka dhexeeya dal adduun hadduu yahay ilahay waxaasi dan ka mari kuu ilaah ka dagaalamaya taas ma lii baana tusisay waxa weeye qofkan weligaa ee alimaanu wataqwa laga helay kana dagaalamay alimaanu wataqwa buu kula dagaalamay kaas maanta tafsiru baana waaba iska tallaaba in la iskula dagaalamayo diinta iyo xijaabka iyo wixii alle ku saabsanaa isagoon qofkaan lahayn ama waxbuu dilay waxbuu caayay waxbuu dhacay aan dembi kale loo sheegaynin in lagula dagaalamo arrimaha kolka midda alla uu ka dagaalamayo waa inay tahay colaad lagu qaaday weliga liajlillaahina loogu qaado waxa loola dagaalamayo alla dartii wey wailaa murankii laba mu'min ka dhacaba ilaah baa ka dhex dagaalamaya ma haddii muranka labada min ka dhexeeya xuquuq iyo dana isaga jira ay yihiin macalish taas dhimala caadi kolkaa weligiina waa ka waxa alla uu ka dagaalamayana waa ka alxadiidu taaminu wasalaatu xadiidka 8 can abi hurayra xaggii baa laga wariyey radia allahu canhu ilah raalli abu hurayra ka noqdo qaal abu hurayra yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama alla rasuulkii wuxuu yihi in allaha ilah tacaala korahaya qaala eba wuxuu yihi man cadaa qofka la dagaalama lii liajli aniga dartay weliyan ula dagaalamo alla dartii baa loola dagaalamo salaadii iyo daacadii iyo qur-aanki iyo diinti iyo cibaadadii baa lagu dilaya ha markaas colaada lala dagaalamay waa liajlillah laakin beer baa naga dhexaysa bar baa naga dhexaysa xiidnimaa naga dhexaysa xoolaa isugu keen jira xisaabaa isaga keentaasan san haddaynu ku dagaalano labadeena taas ilaah ma taabanaysa liibaa ina faa'idaysay maana faqad aadantuhu waxaan haddaan allaha ogeysiiyey bilxarbi dagaal daani muxaaribun lahu kolkaasaa tafsiir dheerna la siiyo weygina lagu baraayo wuxuu ilaahay yihi subxaana ila xadiidka waa qudsi wamaa taqaraba ma dhawaado ilaya aniga allah cabdi addoonkayga bishayin iguma dhawaado axaba looga jacayl badan yahay ilaya agtayda mimaa kii gudashadii iftaradtuhu aan ku waajibiyey caleyhi addoonka korkiisa waxaa lagu baray welinimo maxaa lagu noqdaa adaa-ul waajibaa lagu noqdaa wixii ilaah kugu farad yeelay gudashadood aa lagu noqdaa weli waana kan xadiidkii daliilkeedii waa ooda ilaah ka qaaday wamaa taqaraba ma dhawaado ilaya aniga allah cabdi addoonkayga bishayin iguma dhawaado axaba loo jacayl badan yahay ilaya aniga mimaa kii gudashadii iftaradtuhu an aniga allah ku farad yeelay caleyhi korkiisa addoonka hadduu guto wixii lagu farad yeelay lagu waajibiyey salaada iyo soomka iyo xajkii nafaqadii ahalkiisa iyo alamru bilmacruuf intuu geli kara hadduu addoonka guto ilaa wuxuu ugu dhawaado taa ka horeeya lama faradka markuu la yimaado hadduu sunihii ku darana yaabay sii leeda waxaad garatay sunuhu wuxuu imaanaya kolkii farad la guto haddii aadan ba faradkii gudanin waxaad la timid sunna lagu magacaabi maayo kalimatu naafila waa ziyaada koor buu magaca imaanaya wixii furuud ahaa baad gudatay markaasay naafila imanaysa adoon farad gudanin waxaad la timaaday naafila lagu magacaabi maayo kolkaasaa rabbi yihi subxaana walaa yazaalu kama zuulo cabdi addoonkayga yataqarabu inuu dhawaanayo ilaya aniga eba binawaafili biadaa-i nawaafili nawaafisha gudashadeeda kama zuulo inuu addoonkayga iigu dhawaanayo xataa uxibahu ilaa addoonkii aan ka jeclaado marka waad garatay wixii awliye lagu noqdo ama alla loogu dhawaado wuxuu noqday awalan faradkoo la guto haaniyan sunahoo lagu daro kolkaa waa taa welinimadi walaa yazaalu cabdi addoonkayga kama zuulo yataqarabu inuu dhawaanayo ilaya aniga allah binawaafili biadaa-i nawaafili sunayaal ama ziyaada gudashadeed xataa uxibahu ilaa addoonkii aan ka jeclaado kolkaasaa rabbi yihi subxaana fa idaa axbabtuhu haddaan addoonka jeclaado kuntu anigii alla ahaa baan noqonaya
samcahu maqalkiisa alladii maqalkaw yasmacu wax ku maqlo bihi maqalka wa basarahu aragiisa yaa noqonaya alladii aragaw yubsiru wax ku arka bihi araga wayadahu gacantiisaa noqonaya allatii gacantaw yabdishu wax ku qabto bihaa gacanta warijlahu lugtaa noqonaya allatii lugtaw yamshi ku socdo bihaa lugta wala in saalanii hadduu ituugo la uctiyanahu wuxuu iga sugay waa siinaya wala in istacaadani hadduu imagan galo la bursanayana la uciidanahu waa magan gelinaya yaa tura siduu ilaah ku noqonayo ninkan weligee sunniya faralba gutay inuu jeclaada garanay laakiin ilaah baa yihi maqalkiisiiyo aragiisiiyo gacantiisi lugsiaa noqonaya maa macnaa haadaa macnaha waxa kolkaan aniga jeclaado isagana anigu i jeclaanaya ma horuuba ii jeclaa markuu wixii aan ku faral yeelayna gutay wixii sunnaana ku daray horuuba ii jeclaa kolkaa markii jacaylka anihi isaga uu la dhex maro ma ogola inuu maqlo waxaan alla ku saabsanayn ma ogola inuu arko waxaan alla ku saabsanayn ma ogola inuu u socdo waxaan alla ku saabsanayn kolkaa maqalkiisi iyo aragiisi awoodiisiiba allay ku xiran yihiin wax kaleba ma rabo markaasa ilaah maqalkiisa iyo aragiisi iyo gacantiisiiba ilaaliyey waxaan alla raalli ka ahayna ki ilaaliyey wixii alla rabayna ku ilaaliyey kolkaa ma maqlo waxaan alla ahay ma arko waxaan alla ahay uma socdo waxaan alla ahay kolkaa hawshiisoodan maxay noqotay ilaah darti min ajlillah wuxuu samaynayo meeshuu aadayo wuxuu dhowraayo alla dartii bay noqotay waa kaa taqdiirkii faidaa axbabtuhu haddaan jeclaado kuntu waxaan noqdaa samcahu maqalkiisa alladii maqalku yasmacu wax ku maqlo bihi maqalka wa basarahu aragiisa alladii aragaw yubsiru bihi wax ku arko wayadahu gacantiisa allatii gacantaw yabdishu wax ku qabto bihaa gacanta warijlahu lugtiisa allatii lugta wayamshi ku socdo bihaa lugta baan noqonaya waxaan raalli ka ahayn u socon maayo waxaan raalli ka ahayn gacantiisa ku taaban maayo waxaan aniga allaha raalli ka ahayn ishiisa ku arki maayo waxaan raalli ka ahayn inuu dhegeysaa ma ogola kolka heerkuu gaaray arag wala in sa'alanii hadduu wax i weydiiyo wuxuu rabo waxaa ku saabsanaade la uctiyanahu wuxuu i weydiiye waa siinaya wala in istacaadanii hadduu i magan galo oo wuxuu ka baqaya iga magan galana la uciidanahu waa magan gelinaya rawaahu lbukhaariyu ayaa wariyo alxadiidu taasicu wathalaathuun xadiidka 9 raawidiisa cabdullaahi ibnu cabbaas wey macnuhu ku saabsan yahayna raxmatullaahi calaa hadihi lumma naxariista uu ilaah u naxariistay addoommadatan oo la yihi 3 baa addoommadii loo dhaafay gaf wixii uga yimaada addoommada waa loo dhaafay halmaan wixii uga yimaadana waa loo dhaafay waxaa lagu qasbo awood ka xoog badan ay ku igraadana waa loo dhaafay laga yaaba inay isku darmaan khata iyo nisyaan khata iyo nisyaanka laba waxay sagadan yihiin ma isku masdarna maa isku meel kama yimaadaan khata jawaarixil xibni uu ka imaanaya ama nisyaanu min alqalbi buu ka imaanaya kolka wixii ila haddii salaadii casar ba ay koo noqoto inaad tukatay oo lagu ilowsiyo qalbigaaga alla ka tiray nisyaan ama khata waxa jawaarixda laga sameeyo kolka alkhata'u min aljawaarix wanisyaanu min alqalb misaal inaad dhab u garata haddaad doonaysid qof baa hortaada taagan waxaa la yidhahdaa magaciisa cali in cali la yidhahdo waad ogta adigoo cumar yiri baad aragtay magaceetaas waa khata maxaa jira in cali la yidhahdana waad ogay cumarna carabkaa kaa boobay adigii baaba isaxayo durbale maya cali baan udan leeyahay laakin haddaad in cali la yidhahdo ilowdad in cumar la yihahdo moodaysana halmaa in cali la yidhahdaba waad ilowday maskaxdiiyo maanka kuma haysid waxay kugu muuqatay cumar in la yihaa markaasaa tiri waryaa cumaro maxay noqotay taa nisyaan masdarkii muxuu noqday nisyaan min alqalbi waalkhata min aljawaarix waxaadna ku garanaysa xadiidkii rasuulka addoonkii safray ee duur marayay ee neef gaadiida watay ee baad iyo biyo wuxuu ku noolaan lahaa neefkaas farkiisa ku watay ee markuu meel dhaxa jooga neefkii ka baxsaday hadduu neefkii buriyoos raadiyeyna gaari waayey neefki kolkuu neefkii iyo wixii gaari waayey banaan cidla ana joogo oon u yimid daal u yimid gaajo u timid waxbana male meesha wax jooga male wuxuu ku talagalay waa istoosiyey reer akrin kolkaa wuxuu daydayday geed fiican oo hoos loosku nafbaxo kolkaasuu geed hoostiis iska saaday isagoo aakhara ku talagalay iyo nafbax adduuna ka quustay hadhowba neefkao ilaah soo celiyaa soo kor joogsaday indhaha hadduu birras ka siiyey iyuu arkay neefkii baadka iyo biyihii wada
wax ka dhacay wax ka daatay male oo kor taagan baaw intuu yiri oo sogaanka ku dhagay yuu allahumma anta cabdii waana rabbuka muxuu rabay inuu yidhaah allahumma anta rabbii wa ana cabduka ilaahu rabbigaygii baa tawaa ixsaan fashay ana addoonkaagii baan ahay akhta'a min shiddati lfarx rasuulkii baa yii farxii baa ka batay khata waa kas wuu og yahay isaga inuu addoon yahay allana rabbi yahay kolka khata'a waa jawaarixda carabka iyo adimuhu ka yimaadaa nishaankana qalbiguu ka yimaadaa kolka wixii khata iyo gaf loo sameeyo iyo wixii halmaan loo sameeyo iyo wixii laysku dirqiyo saddexdaas mucaatabadeedii iyo dagaalkeedii ilaah waa naga cafiina looma haysta maxaa jira gaf la gala gaalnima ugu weyn waataan iri Camaar ibn Yaasir qisadiisii kolka la yidhi haddaadan gaaloobin waa ku dilaynaa oo iska gaaloobay oo nabiga u sheegay kayf wajadta qalbaku weydiiyey mudmainun biliimaan fain caduu facud calayka aayadda sidii bay ku timid ilaa man ukriha wa qalbuhu mudmainu biliimaan idan haddii iimaankii iyo gaalnimadii wax lagu dhaqaaqa u weynaa haddii laisqasba la cafiyey famaa duunahu wixii gaalnimo ka yar ee lagugu qasbo axraa wa awla lagu qabsan maayo الحديث 39 حديث كسقال صدنا عن ابن عباس عبد الله بن عباس حكيم لقوري رضي الله قال عنه عنهم عبد الله عباس لبلغ أن رسول الله إلا الرسول كيس صلى الله عليه وسلم عليه رسول كرس وآله عند الرمى يسير عليه وسلم النبي قال الله كبدي قال رسول كوحي ومع السلامة كلمة سفيون من الله معبود حقا تجاوز لها في لي أنا محمد عن أمتي إلى حاجة لو إذا في الله وأن لو يديني الخطأ قفوحي وغيما دومها والنسيان وحي اللوذان وما استكره أدومدي وحي لا درغي عليكم تيدا لو درغي أول تساوين باكو يا شيء نفس هذه لي ماشي جوجتي والو درغي علامة الخير الله كوغو كل حسان تماي علامة الاختيار يعني كان موقنينه واحد سكرتا يالو يري ورما يقديسان أذيقوا لنا وكبة رخصتي سؤالكم هو كونا محسان تماي waxaan waxaan rabaa in raalli ka ahayn qalbiga qaala midna ee lagu qasbaa la doonaya في سورة البقرة لقصة مرني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فعيمدنا وعلى قصة مرة لمركي جملات كاس كاملة وماذا ترى هذا إن ربي لها قد فعلت وإذن يلي إن الله إله تجاوز وأولافي لي أنا رسولك وحوئي لافي عن أمتي وماذا إذا حقا وحوئي لافي وأدونك معاتبة مالي جناح إيه محكمة إيه عقاب مالي قريد أي ملائكة قرطوا لإسكاب المريم مالي آخرا لإسكو حسابها مالي صدق ذات إله أدومها أولافي إن الله إله تجاوز وأولافي إله لأنك رسولك عن أمتي وماذا إذا حقا وحوئي الله إلافي الخطأ كفك والنسيان هلمانك وماكي استكره ومدى اللغو قصبي عليه كوركيسا حديث حسن ونكسن هو حديث كان وعوري ابن ماجه والبيهقي وعوري وغيرهما فلما كان وعوريين والله أعلم.